salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee Hela Media qodobada aad ku maqli doontaanna waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay xaaladda Beledweyne xiisad markaasi ka dhalatay xildhibaanada loo gacan qaaday golaha wasiirada koonfur galbeed oo ka hadlay dadkii lagu dilay galmudug kulan dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo maamulka gobolka banaadir dowladda federaalka iyo midowga yurub oo kala saxiixday heshiis muhiim ah saraakiil ka tirsan booliiska amisom oo lagu abaalmariyay hawshii ay u joogeen Soomaaliya akhbaaraadka dibadda aan idin haynana saaxiibayaal waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Masar oo ku booriyay dowladaha Afrika iskaashiga la dagaalanka musuqa iyo markaasi wararkii ugu dambeeyay maraakiib lagu weeraray gacanka Cumaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan saaxiibayaal marka la isku soo noqod haboon aanu ku bilowna qodobka ugu horeeya wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in caawa ay halkaasi ka socdaan kulamo kala duwan oo u dhaxeeya qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Beledweyne iyo guddi wasiirada oo magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kulamadan ayaa ka socda xirada ciidamada amisom ee duleedka magaalada Beledweyne waxaana looga hadlay sidii looga hortagi lahaa banaanbaxyada ka bilowday magaalada in ay markaasi sii xoogaystaan xaaladda magaalada Beledweyne ayaa caawi degan waxaana magaalada ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowladda Djibouti ee howlgalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan qaar ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa sheegay in ay markaasi doonayaan in ay waan ku dhameeyaan xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyaha gobolka Hiiraan madaxweyne Waare ayaa shalay markaasi dibadbaxyo careysan iyo ciidamo daacad oo Yuusuf Dabageed u diiday in ay gudaha u galaan magaalada Beledweyne waxa uu weli ku sugan yahay markaasi xirada ciidanka amisom madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee markaasi Soomaaliya Maxamed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa shirka toddobaadlaha ay yeesheen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed shirkan ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ammaanka dhaqaalaha siyaasadda waxaana warbixino ku aadan amniga laga dhageystay wasiirka xigeenka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed Isaaq Barrow Isaaq waxa uu ka warbixiyay howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amisom ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo al-shabaab dalka looga saarayo sidoo kale shirkan ayaa waxaa marti u ahaa gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed waxaana warbixin ku aadan habsami u socodka shaqada ay ka dhageysteen golaha wasiirada iyo madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen shirkan ayaa waxaa si weyn looga hadlay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday deegaan hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb oo lagu dilay shacab ganacsato ah oo ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya madaxda dowladda goboleedka koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa tacsi tiiraanyo leh ay u direen eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkaasi waxaana xuseen in sida ugu dhow markaasi lagu soo qabanayo dadkii dilka u geystay dadkii shacabka ah ee aan waxba ka galabsan iyadoo ay markaasi la kaashan doonaan dowlad goboleedka galmudug lana horkeeni doono sharciga shirka oo ahaa mid inta uu socday badankiisa diiradda lagu saaray arrimaha dilka loo geystay dadkii markaasi shacabka ah ee ka soo jeeday koonfur galbeed Soomaaliya ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koonfur galbeed Xasan Cabdi Maxamed dhammaan xildhibaanada dumarka ee ku jira baarlamaanka Kenya ayaa ku dhawaaqay in aysan soo xaadiri doonin isla markaana isaga baxayaan aqalka iyadoo uu socdo kulan muhiim oo ah markaasi oo ku saabsan miisaaniyadda sanadka ee dalka Kenya
tallaabadan ayay mudanayaasha ku muujinayaan carada ay ka qaadeen weerar gacan qaad ah oo maanta oo loo geystay haweeneyda baarlamaanka u markaasi matalaysa dumarka ismaamulka Wajeer oo lagu magacaabo Faadumo Geedi. falkan lagu weeraray xildhibaanada ayaa lagu eedeeyay mudane kale oo ka tirsan baarlamaanka oo isagana laga soo doortay Wajeer. Rashiid Amiin oo ah xildhibaanka bariga Wajeer ayaa lagu eedeeyay in uu Faadumo Geedi ugu gacan qaaday dhismaha baarlamaanka gudihiisa. wararka ayaa sheegaya in Mr. Amiin uu xildhibaan Faadumo ku eedeeyay inaysan deegaankiisa wax dhaqaale ah u qoondeynin maadaama ay ka mid tahay guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka dhageystay guddoonka iyo howlwadeenada gobolka Banaadir warbixin ku saabsan waxqabadkii iyo qorshaha maamulka ayaa ku bogaadiyay doorka muuqda ee ay ka qaadanayaan barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo dalka. madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale oo udub dhexaad u ah horumarka iyo sare u qaadidda heer nololeedka muwaadiniinta laguna shaqeeyo wadaniyad, hufnaan iyo maamul wanaag. waxaa laydinka doonayaa in aad markaasi xaqiijisaan dib u dhiska kaabayaasha nolosha, bilic soo celinta caasimadda iyo adeegyada bulshada. waxaa kaloo muhiim ah inaad ku dadaashaan la dagaalanka musuqmaasuqa kana fogaataan qabyaaladda iyo eexda. sidoo kale madaxweynaha ayaa kula dardaarmay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Banaadir in ay xoogga saaraan daris wanaagga bulshada caasimadda iyo xoojinta wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha ammaanka si looga hortago falalka guracan ee argagixisadu ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub waxay maanta kala saxiixdeen heshiis lagu maalgelinayo dib u dhiska wadooyinka gobolada dalka. munaasabadaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa labada dhinac ku kala markaasi saxiixday maalgelintan mashaariicda oo AU ku bixinayso qarashaad dhan 42 milyan oo euro. wasiirka qorsheynta maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo danjiraha midowga Yurub u jooga Soomaaliya Nicholas Martinez ayaa si wadajir ah u saxiixay heshiiskaasi. wasiir Jamaal Maxamed Xasan waxa uu xusay in yabohan cusub ee loogu talagalay dib u dhiska wadooyinka si xoojinayso 100 milyan oo euro oo ay markaasi midowga Yurub u taageereen ka miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya. dhaqaalaha guud ee deeq bixiyaashu ugu talagaleen mashruucaasi ayaa la sheegay inuu dhan yahay 59.75 milyan oo euro. mashruucan dib u dhiska wadooyinka gobolada Soomaaliyeed ayaa qayb ka qaadanaya sare u qaadidda awoodda hay'adaha dhismaha wadooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo dayactir lagu sameeyay ilaa 355 kilomitir oo ka mid ah wadooyinka isku xira gobolada dalkeena. 16 saraakiil booliis oo ka hoos shaqeynaya howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ayaa lagu abaalmariyay bilado kadib markii ay si hufan uga soo dhalaaleen howlihii ay u joogeen gudaha Soomaaliya. saraakiishaas waxay ka kala socdeen dalalka Kenya, Sierra Leone, Zambia waxayna si guul leh ku dhamaysteen xilli howleedkii 1 sano oo ay markaasi qaybta ka ahaayeen booliska AMISOM. muddadii ay joogeen waxay tababar, wacyigelin iyo la talin siiyeen dhigooda ciidanka booliska Soomaaliya. xiriiriyaha booliska AMISOM ee dhinaca howlgallada ahna ku-xigeenka taliyaha booliska AMISOM Cali Gawambal waxa uu markaasi ku booriyay saraakiisha biladaha markaasi la guddoonsiiyay in ay khibradooda ugu adeegaan sidii nabad iyo ammaan looga dhalin lahaa guud ahaan. AMISOM waxay barnaamij tababar siiyaan booliska Soomaaliya si looga markaasi taageero horumarinta awoodda iyo khibradda ciidanka, taasi oo qayb ka ah qorshaha xilliga kala guurka ee ciidanka AMISOM kaga bixi doonaan Soomaaliya sanadka 2021.
imikana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha markaasi dalka Masar Cabdifataax al-Siisi waxa uu hadalkaasi ka sheegay furitaankii shirweynaha koobaad ee Afrika markaasi la dagaalanka musuqa oo shalay ka furmay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Waxa uu dowladaha Afrika ku booriyay in ay markaasi iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa musuqa iyo in ay muhiim tahay in ay isdhaafsadaan aragtiyaha iyo kobcinta xiriirka lagu yareynayo musuqa. Masar waxa ay sii wadi doontaa taageerada iskaashiga dadaalka lagula dagaalamayo ee heerka Afrika ayuu yiri madaxweyne Cabdifataax al-Siisi. Waxa kale oo uu sheegay in akadeemiyada la dagaalanka ee qaranka Masar diyaar u tahay inay tababar siiyaan kaadiriinta hay'adaha xoojinta sharciga ee dowladaha Afrika si loo kobciyo hanaanka wax looga qaban karo musuqa. madaxweynaha Masar waxa uu tilmaamay in ay sanooyin badan la dagaalamayeen musuqa isla markaana ay cilmi baaris iyo ra'yi ururin ku sameeyeen sidii looga hortagi lahaa la dagaalanka musuqa. madaxweynaha Masar waxa uu ergooyinkii Afrika ku soo dhaweeyay Masar si ay markaasi uga faa'iideystaan khibradda Masar ee la dagaalanka musuqa. Shirkaas oo lagu soo gabagabeeyin doono magaalada Sharm el-Sheikh waxa ka qayb galay gufuud ka kala socotay dalalka Afrika iyadoo shirkadda diyaaradaha Masar ee Egypt Airlines sheegtay in ay soo daabuleen 22,500 oo qof oo ka mid ahaa ergooyinkii ku sugnaa shirkaasi ka socday magaalada Sharm el-Sheikh. Faranta Altair oo ah markaasi markab saliida qaado oo laga leeyahay dalka Norway ayaa la sheegay in lagu weeraray gacanka Cumaan ee u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Iran. Hay'adda ilaalada badaha ee Norway ayaa sheegtay in 3 qarax laga maqlay markabka balse aysan cidna ku dhaawacmin. bayaan ka soo baxay hay'adaha ayaa lagu sheegay in sidoo kale dooni lagu magacaabo Koluka lagu weeraray isla aagaas. Dowladda Iran ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay weerarada la sheegay in maraakiibtaasi lagu qaaday. Dhinaca kale ciidamada badda Iran ayaa soo badbaadiyay 44 qof oo shaqaale 2 markab oo saliida qaada oo markaasi dab uu ka kacay kadib markii dhacdo ku qabsatay gacanka Cumaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran. 44 badmaaxyaal oo saarnaa 2 markab oo shisheeye ayaa markaasi waxaa badda ka soo badbaadiyay ciidamada badda ee qaybta gobolka Hormatosogan waxaana la geeyay dekada Bandaraaska ayaa wakaaladda wararka Iran ka soo xigatay la wareediyo. mid ka mid ah maraakiibta oo sita calanka jasiiradda markaasi Marshall Island ayaa kiimikada shidaalka lagu daray ethanol ka soo qaaday dalka Qatar una socday Taiwan waxaana saarnaa 23 shaqaale. markabka kale oo ay saarnaayeen 21 shaqaale ayaa sitay calanka dalka Panama wuxuuna ka soo tagay dalka Sacuudiga una socday Singapore. ilaa iyo hadda lama yaqaano waxa sababay dabkii ka kacay maraakiibta balse waxaa looga markaasi malaynayaa in la weeraray. intaas ayaa ku soo gabagabeynayna saaxiibayaal warka fiidnimo aad ka daawanayseen Hilla Media anigoo mahad macallin ayaan idin tabinayay. ha ilaawinina subscribe share